kulan qada sharaf ah uu soo agaasimay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane cali yare cali ayaa ka dhacda maanta hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho qada sharafta ayaa ujeedkeeda ahaa in lagu dhiirigeliyo ciyaaryahanada xulka kubadda cagta galmudug kuwaasi oo gaaray samafiinaalaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir qada sharafta waxaa soo xaadiray mas-uuliyiin ay ka mid yihiin senator cabdi qaydiid wasiirka dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug xuseen cabdulle xasan haliye sboortis bashiir jenyo taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha mudane kofi iyo mas-uuliyiin kale ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali yare cali waxaana uu sheegay in mar kasta uu garab taagan yahay ciyaartooyda galmudug sidoo kale waxa uu ballanqaad u sameeyey ciyaartooyda haddii guulo ay ka keenaan koobka waxaan rabnaa berri waa ciyaar adag niman saaxiibadana la ciyaaraynaa sportsku waa saaxiibtinimo sportsku waa soo dhawaasho waa walaalnimo waxaan rabnaa idinkoo ixtiraam iyo walaalnimo iyo waxa sportigu u taagan yahay muujinaya haddana inaad ciyaartaan baroni adag berri waa el classico waaye ya aniga weli garoonka ma tegin laakiin berri waa taga anoo calaamadda anti ii saaran tahay galmudug inaan tagaan rabaa xalay madaxweyne qorqor waxaan kula kaftamay inta ciyaaraha ay socdaan aniga waxaan noqonayaa madaxweynaha galmudug ee gobolka banaadir marka inta ciyaaraha socdaan jenaraal cabdi qabdiid baan ogolaansho ka qaadan doonaa kadibna aniga waxaan isku dayi doonaa ma buuxin karo laakiin inaadna madaxweynaha tabin wax allaalo wixii garab qabasho ah taageero ah wax allaalo wixii madaxweyne qorqor oo xamar jooga looga baahan lahaa waxaan rabaa aniga in la igala soo xiriiro sidoo kale senator cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa khudbad dhinacyo badan ah ka jeediyey goobta waxaana uu sheegay in wax badan laga rajeynayo ciyaaryahanada galmudug marka aad iyo aad baad adeeryaal iyo dhammaan madaxda kala duwan halkaa iskugu timid iyo cayaartooyda waxaa weeye shaqo fiican baad qabateen insha allahu tacaala waan imaanaynaa haddaan ka maqnayn fagaarayaasha meesha wax kale hadina sacabka iyo qayladhaanta iyo abaabulka nala ka weyn maayo agtiinaan taaganahay haddii ilaahay idmo waxaa la rabaa in yar baa idiin hartay meel baa timaadeen waxaa weeye already you cross the river webigii waa soo gudubteen waxaa idiin haray xoogaa israacina waxaan u malaynaya 2 ciyaarood baa idiin hartaan u malaynayaa si final loo yimaado hal ciyaar baa hartay finalka ciyaarta labaad waa finalka waxaan rajaynaynaa arrintaas in ilaahay maaragtay idin fududeeyo dhinaca kale haliye bashiir jenyo ayaa kelmado kooban ka jeediyey qada sharafta waxaana uu sharaxaad badan ka siiyey hannaanka ay kala hortagi karaan puntland ani ciyaartii hore iyo tii labaadba waa fiirsaday waxaa muujiseen ciyaar aad u qurux badan oo si fiican ummaddii joogta xataa oo gobolka ahayd xataa inay adinka in raacaan waxaana keenay ciyaar quruxda muujiseen marka waxaan rabaa macalin tahliil waa ismaqalnaa talo waa kala qaadanaa waa nin aad iyo aad u wanaagsan macallin fiicana hadda ka hor markaan ciyaaraha ay bilaaban ayaan mar is aragnay galmudugaan wadaa u yiri waxaan ku iri ka waran dhallinyarada say yihiin wuxuu yiri sanadkan wax nooga dambeeya ma leh runtii waa uga mahad celinaa ugu dambeyn wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug mudane xuseen cabdulle xasan ayaa aad ugu mahad celiyey mudane cali yare cali qada sharafta uu sameeyey ciyaartooyda dowlad goboleedka galmudug kuwaasi oo sanadkan ku jira hannaan fiican marka lala barbardhigo labadii tartan ee ugu dambeysay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ilaahay idankiisu waa dadaali doonaa dadaalkii wasiila bijbaari doonaa tan waxaynu tusinaysaa dhiirigelintiina mooye u qaadan mayno inaan guulaysanay guushu way noo dambeysay haddii ilaah yidhaahdo banooniguna sidaad sheegteen waa cagaar iyo madow ama caddaan iyo madow mid ka mid oo noo noqon doonaa innagu waxaa ciyaari runtii waa xirfad xoogna ma ciyaari doono orodna ma ciyaari doono xirfada ciyaari doona haddii ilaah yidhaahdo ciyaartooydu waa maqlayaan ammaantii dhiirigelinta loo soo jeediyey iyo qaabkii wax u sameeyeen marka gubaabada way ka dhan yihiin ila tahay loo noqon maayo